sidaad intiina badan la wada socoteenba waxaa lagu dilay magaalada Muqdisho Allah u naxariistay wasiirkii howlaha guud iyo guriyeenta habeenkii xalay ahaa waxaana maanta lagu aasay magaalada Muqdisho Allah u naxariistay marxuum Abbas Siraaji wasiirkii howlaha guud oo ahaa wasiirkii ugu da'da yaraa xukuumadda Soomaaliya isla markaana kamid ahaa xubnaha baarlamaanka federaalka ku soo biiray sanadkan waxaana ay sameeyeen hay'adaha dhinaca amniga la xiriiray ee dawladda baaritaanna ku aadan arintaasi iyadoona ugu dambeyn loo soo qabtay 3 qof dilka wasiirka waxa stuudiyaha Universal igula sugan gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shoote gudoomiye ku soo dhawow Universal barnaamijka dabagalka wararka dabcan si gaar ah ay mas'uuliyad kaga saaran tahay arimahan oo kale marka ay dhacaan markii aad maqasheen in falkan uu dhacay tilaabo nooce ayaad qaadeen ugu horeyn bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin waa maasantahay Cabdullaahi bahda barnaamijka kula wada iyo guud ahaan TV-ga Universal aad u mahadsan yahay sida runtii ummadda ugu gudbinayo barnaamijyada wax dhaxalgalka ah oo qusay runtii xilligaas wax taagan marka hore waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo ummadda Soomaaliyeed iyo ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxay guud ahaan golihii wasiirada xildhibaanada dadkii uu ka tagay uu ka gooriyooday oo anaga aan ku jirno runtii wasiir Abbas Siraaji oo ahaa runtii nin dhalinyaro ah runtii dhacdada habeen horata ka dhacday dalka waxay noqotay dhacdo runtii in reebtay oo dhibaato reebtay wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo runtii mataqaana hami badan leh waxaan leenahay jannatul firdaws Allah ka waraabiyo ilaahay jannadiisa ka waraabiyo ummadana sabir iyo iimaan Allah ka siiyo inta kadib maxkamadda garsoorka ciidamada qalabka sida mar hadii ay dhibaato dhacday oo falku uu noqday fal dil ah oo qof xanuun u dhinta uusan naqanin waxa amar isla habeennimadii aan ku bixinay in xeeraanta ciidamada qalabka sida ay arintaasi dabagal ku sameeyso cidda lagu eedeynay cidda lagu tuhmayayna ay daba istaagto isla habeennimadii dadka u istaagay waxa kamid ah xeeraanta ciidamada qalabka sida waxa u istaagay mataqaana hay'adaha ammaanka oo ku jiray booliiska iyo militariga oo iskaashaday waxa suura gashay in dad badan oo lagu eedeynayo dib ka dhacay oo la xiray kadib baaris la sameeyay baaristii markii la sameeyay kadib ay xeeraalintu u suura gashay in dad loo haysto arintaasi la soo eedeeyo oo maxkamadda sidaas lagu keeno waay marka imise qof ayaad u soo qabateen falka ilaa hadda waxa u xiran 3 qofood oo lagu eedeynayo in ay rideen 2 kamid ah xabadihii oo ku geeriyooday wasiir Abbas Siraaji Allah u naxariistay lagu eedeynayo maxkamadda ayaa maanta la horkeenay runtii waxayna wax ka weydiisay dhageysigoodii koowaad ayay wareysatay sida ay wax u dhaceen kadib maxkamaddu waxay amar ku bixisay maadaama kiisku uu bilow yahay in hay'adaha ammaanka ay soo dhameystiraan waxyaabaha looga baahan yahay way ciidamada falkan geystay yay ilaalinayeen sida qoraalka lagu qoray hay'adaha baarista iyo xafiiska xeerartan oo cadeeyay waxay ciidankaasi ilaalo u ahaayeen mas'uul kamid ah dawladda Soomaaliya oo runtii lagu sheegay inuu ahay hanti dhowrka guud ee qaranka oo ahay bagaariga mataqaana dhibka geystay oo ay askarta saarayeen yaa waxa la hayay hanti dhowraha waxayna sheegeen hay'adaha baarista wali inay wadaan doorka iyo mas'uuliyadda ay ku lahaayeen oo ku leeyahay cidda gaarigaas iska lahayd falka dhacay doorka uu ku leeyahay walina waxa socota runtii baaristii iyo mataqaana ay wax ku socdeen walina ma soo gabagaboobin maanta waxa dhacday dhageysi koowaad oo loogu talagalay in dadka sida kooga lagu eedeynayo ay dhageysatay maxkamadda dadka la dhageystana waxa loo diray xabsiga waxa amar ay ku bixisay maxkamaddu in ay soo dhameystiraan cid walba iyadoo la soo cadeynayo cid walba mas'uuliyadda gaarka ah iyo doorka gaarka ah ay ku lahayd mataqaana dhib ka dhacay oo runtii musiibada qaran ah marka dabcan cadeemiyada rasmiga wali ma dhameystirna cadeemihii kiiska intiisa badan mar hadii la helay dadkii xabadaha riday mar hadii la helay la aqoonsaday dadkii gaariga saaray kiiska intiisa badan waa dhameystiran yahay laakiin mar hadii procedure-ka iyo hab nidaamka cadaaladda u degsanaa waxay fareen in waxa si fiican loo hubiyo qof walba doorkiisa si aanan u dhicin degdeg oo u dhicin in la hubiyo cadaaladda way sida aan wada arkayna gaariga uu watay wasiirka
dabcan meesha ku aadan kursiga wasiirka isaga gaarigooda leeyahay ayay xabaddu ka gashay sida muuqatana qiyaasteyda iyo dad badan laga yaaba inay aragti yihiin waxaa qabaan inay hal xabo uun tahay xabadda meesha gashay heerka duleelka uu leeyahay marka la eego waxaana xiran sidaad sheegtay 3 qof marka dabcan falkaasi ugu dambeyn wuxuu noqonayaa Soomahan inuu hal qof uun kaliya xabadda uu riday uu ku geeriyooday wasiirka waxyaabaha keenayo in baaris dheer la sameeyay ay kamid tahay dadka gaariga waxaa gadaal ka saaray 2 qofood oo hubeysnay oo ciidamada ilaalinayay mas'uulka gaariga markaa saarnay kamid ahayd xabadda cidda sida rasmiga u riday in la hubiyo waxay u baahan tahay in qoriga iyo gumacii xabadda markii lagu sameeyay wasiirka marxuumka dhintay baaris lagu sameeyay xabaddii laga soo saaray iyo hubkii qoriyihii la qaaday waxaa la hubinaa in qofka afkiisa kaliya lama xugmi karo qoriga uu watay cidda qorigaas wadatay iyo xabadda qoriga ay ka dhacday markii la hubiyo mataqaanaa hab sheegaya ma jiro oo rasaasta iyo wixii si yeelan qorigan markii xabadda ka dhacdo hab loo baaro leeyahay xabadda dhacday in qorigan ka dhacday iyo in qoriga kale ka dhacday waxyaabaha hay'adaha baarista aan u dirnay kamid tahay in la hubiyo cidda gaarka u lahayd xabaddaasi cidda riday way jirtaa runtii qof kasta uu sheegay doorka uu lahay uu sheegay laakiin cadaaladana faraysa in wax walbo si dhab ah oo degdeg ku jirin in loo hubiyo kadibna go'aanka maxkamaddu ay soo saarto laakiin dadka qabateen qof dhahay aniga mas'uuliyadda qaadayo oo xabadii aan riday ayaa sababtay in wasiirkeeda ma jiro way sheegeen kulli inay xabad rideen laakiin qof dhahay ma jiro aniga teedii waa ficlan wili go'aankaas gaarin waxaad ogtahay marka aad dib u laabanno in ciidamada hubeysan ee gaadiidka mas'uuliyiinta saaran ay falal badan oo dil ah ka geysteen magaalada Muqdisho dhalinyaro ku xamaalanaysa qaarkood gaadiidkan bajaajka oo kale in hadda kor la dilay shakhsiyaad kale oo caadi ah la dilay oo aanay Muqdisho markaad marayso wadooyinka muhiimka ah baabuurta ay ciidamadu saaran yihiin mas'uuliyiinta wadada uma ogola gaadiidka kale ama inay ka hormaraan ma ogola sidaan aragnay inay ka daba maraan ma ogola oo hadday ka daba maraan qoriyo ku fiiqaan oo halis ay gashaan noloshooda dadkaas haddii ay ka hormaraan iyaga ayaa gaarigooda xooli ku socdo uma ogolaado falkaas uu soo socda dabcan waxay gaartay wasiir xukuumadii ka tirsan in xalay lagu dilo maxaa tilaabo ah oo aad qaadaysaan qorshaha maxkamadiina ee arrintaasina muxuu yahay intaan qorshaha u gudbin runtii dhibaatada ah in ilaalada mas'uuliyiinta dowladda la socota dhibaatada ay geystaan markii la fiiriyo dambiyada dalka ka dhacay waxay yihiin waa dambiyada labaad ee dambiyada ugu badan qaybta labaad ay kaga jiraan dhibaatada dadkan shacabka iyo muwaadiniinta dalka haysato waxaan rabaa marka koowaad in aan la hadlo ilaalada wada mas'uuliyiinta dowladda ee runtii caadaystay inay dadka xabad ku fiiqaan dhibaateeyaan dhibaatada dadku dhowr nooc ay u gaartaa qaarna inta xabad kor loogu riday argagaxana markaasay dhulka ku dhacaan ay jajabaan qaarna xabad lagu riday hantidoodii gaarto gawaaridooda xabad ku dhacdaa qaarna wayba dhaawacdaaba qaarna sidii wasiirkoo kale wayba xabadda ku dhacday u dhintaan u geeriyoodaan dhibaatada noocaas ah waxay u sheegaynaa garsoorka ciidamada qalabka sida ay kaga soo talagelayaan in loo aqoonsan doono inay tahay mid ku talagal ah aynan noqon doonin mid qof lagu difaacayo amba nafteeda lagu difaacana ay noqon doonin dadkan muwaadiniin waaye xaqay loo yihiin inay wadada socdaan in aad xabad ku ridaa si macna daraa ku ridaa amba aad argagixisaa amba aad dhibaataysaa marmarsi uma noqon doonto waxay ahayd mataqaanaa inay in aan qof inaad difaacaysay marmarsi mu noqon doonto marmarsi mu noqon doonto inaad adiga isdifaacaysana marmarsi mu noqon doonto waxay u aqoonsan doontaa mid ku talagal ah inay tahay arrintaas loogu bareero qofkaas muwaadinka in lagu dhibaateeyo midda kale oo rabno inaan sheegno mas'uuliyiinta la wado ee ilaalada ku wata magaalada ayagan inaan u sheegno rabno waxaa waaye laba arrinba way sameeyaan mas'uuliyiinta labada arrin waxaa waaye midna waa mare qof muwaadin ah oo wadadiisii socdo ama laami ha socoto ama jicada ha socdee oo wadadiisa socdo in laga daba imaado oo inta la baasgareeyo layska joojiyo la dhaho joog adiga iga har markuu muwaadinka wadadiisa saxda ahayd ku socdana xabad lagu ridaa mas-uulkii darawalkiisa iyo ilaaladiisa aan ku amrin in ay muwaadiniinta ka horeysana ay daba socdaan kuwa ka dambeeyna ay nabadgelinin ay dhibaateeyo intay ka hormaraan kadib dhibaato u geysto asigoo gaariga saaran dhibaato u geysto arrintaasna isla markii aanan ka howlgelin waxaa loo aqoonsanaa inuu yahay nin qof ku talagalay oo qaybna ka ah runtii dhibaatada ay ilaaladiisa geysteen
waxaa taa ka daran iyadana qof mas-uul ah gaari wata waxaa la socota ilaalo magaaladuu dhex maraa magaalada markuu maraayo waxaa ka daba imaanayo shilaa dhacaya siduu raba ku dhacay qof muwaadin aha dhib la gaarsiinaa asigoona qofka muwaadinka dheg jalaq u siinin oonan u istaagin oonan wadin oo hadduu isbitaal u baahan yahay gargaar fidinin u geynin iyo isaga dhaqaaqaa meesha isaga tegaan arrintaasi waa mas-uuliyad darro weyn waana dembi ciqaabka dhalanayso xeerka guud ee ciqaabta soomaaliyeedana dhigaayo qofkii ay ku caddaato mas-uuliyad ah laga bilaabo kiiskan laftigiisa cidda ay ku caddaato in ay qof muwaadin ah askar la socotay dhibaataysay haddana iyadoona waxba tilaabo aqaadin isaga tagtay dadku xoolo maaha muwaadin waayo dalka asaa kaa leh mas-uulna asagaa u tahay ciqaabta dembigaas ka dhalata oo mas-uuliyad darada ah u gargaari la-aanta u gargaari weysay ka tegista a ka tagtay xitaa adigoon dhibaateen markaad u imaato oo mas-uul aad tahay qof dhibaataysan inaad qaadaan mas-uuliyad kaa saarantaa haddii aad saas sameynin waxay noqonaysaa inaad gudo weysay waajibaadkaaga waajibaadka oo la gudo waayana dembi oo ciqaabta tilmaamaysa oo xeerarka dalka tilmaamayaan waaye waxaan rabnaa mas-uuliyiinta inay ka digtoonaadaan labadaas arrin ay ka digtoonaadaan inayna dadka muwaadiniinta waddada maraa ay xoog ku dhaafin kadibna ayna ku dhibaateynin waddada ay maraayeen ay ka joojin waxaan kaga digaynaa in dhibaato dad gaarta ay waddada uga dhaqaaqaan kaga digaynaa labadaas arrin cidda ku dhaqaaqdo ay ku dhaqaaqdo garsoorka ciidamada qalabka sida wuxuu diyaar u yahay inuu tilaab ka qaado hay-adaha ammaanka iyo kuwa baaristan waxaan ka codsanaynaa si deg deg ah inay u caddeeyaan cid walba doorka ay ku leedahay cidda mas-uulka ah dhibaatada ay geysatay askarteeda ay geysatay iyo doorka mas-uulka markaas jooga uu ku leeyahay iyo mas-uuliyadda uu qaatay markaas dhibka u dhacay inay soo caddeeyaan si go-aan nidaamka waafaqsan oo sharciga waafaqsan ay u qaato maxkamadda garsoorka ciidamada qalabka sida wuxuu ballan qaadayaa oo shacabka soomaaliyeed u ballan qaadayaa in uusan kaga waaban cidda ay ku caddaatay in iyadoo dhibaysa ummaddan la helay hadduu ilaahay yidhaahdana kuwa hadda xiran waxay wajihi doonaan cadaaladday wajihi doonaan waxaana loo wajihi doonaa iyagoona xaqooda lagu xadgudbin tii dhibaatada ummadda ay u geysteen runtii indhaha lagama laaban doono runtii waa laga jarsi doonaa qofkay ku caddaato kaas geystay ugu dambeyn go-aankan hadda arrintan taagan goorma ayaad filaysaa inaad soo gabagabaysaan runtii hadba cadaaladdu habka barasoys ay leedahay barasoyska hadda tilmaamahan bixinay oo baarista aan ku sheegay hadeeto kale aan dirnay oo hubkii aan dirnay in la baaro waxaan dirnay mas-uuliyadda ay lahaayeen dadkii kale oo ka maqan kiiska inaan la hubiyo markii saas ku dhamaato hadba sida u gabagabowdo laakiin waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan in uu go-aan waafaqsan cadaaladda oo runtii eex iyo cadaalad darre aysan ku jirin sida garsoorka ciidamada looga bartaba aan soo saarto maxkamadda ciidamada qalabka sida aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa xasan cali nuur shuute gaashaanla sare guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida oo iigu warramayay stuudiyaha universal ee muqdisho barnaamijka dabagalka ayaad weli daawanaysaan allah u naxariistay marxuum cabaas siraaji ayaa ugu dambeyn maanta lagu aasay magaalada muqdisho aaskiisana waxaa ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo xubnaha labada gole salaadii janaasada ayaana lagula tukaday masjid ku yaala gudaha madaxtooyada iyadoona ugu dambeyn lagu aasay qabuuraha ku yaala cisbitaalka madiina ee magaalada muqdisho cabaas siraaji ayaa ahaa wasiirkii ugu daada yaraa ee xukuumadda ra-iisul wasaare khayre iyadoona uu ahaa xubin ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaana aad arrintiisa la iskula dhex maray baraha bulshada gaar ahaan barta facebooka iyadoo lasoo dhigayey sawiro iyo halkudhigyo la xiriira geerida allah u naxariistee wasiir cabaas siraaji waxaana dad